Hay'adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qaranka ayaa gargaar raashin ah u dirtay degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe, kaas oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qoysaska ka soo barakacay deegaanada ay ku dhumaalaysanayaan khawaariijta Al-Shabaab. Deeqdan ayaa la filayaa inay ka faa'iidaystaan in ka badan 600 oo qoys oo ku nool degmada Mahadai. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Hirshabelle Xasan Cabdi Yuusuf iyo Gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa mahadcelin waxay u jeediyeen Hay'adda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Qaranka. hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka oo guddoomiyaha nagala joogo waxaan halkan uga guddoomaynaa raashin gargaar ah oo la rabo dadka xaaladooda maanta aadka looga dayrinayo oo ay soo barakiciyeen dadka manxayaasha ah khawaarijta ah ay soo barakiciyeen guryahoodii kala soo baxeen beerahoodii ka soo waxa waaye bursadeen inaan gaarsiino aan ugu talagalnay haddii aan lidmo. بعد السلام عادي أدو ما دعلنا قدوميها أدم مارنت مسيبوين كمستر محمود معلن تأخذ راشين كأوسو جارسيدت كتب على سنا دوام كصابرة كعيش تولوين كسبعة جزيرة سو جار دق ماذا مهداي حقيقة دي دبعتها ماشى على ميديا رميسن إهانين عبش إيو أرنتي عودر إن أدو وسو جواب سيد أخسير له. Gudoomiyaha Hay'adda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay hay'adda inay ka go'an tahay caawinta barakacayaasha iyo qoysaska kale ee danta yar. waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta joogno magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle taasoo runtii ku diyaarinay raashin loogu talagalay dadkii ay runtii soo qaxiyeen ama ay guryahooda ka soo barakiciyeen qolooyinkii khawaarijta ahay oo runtii dhibaato weyn noogala soo sheegay kuwaasoo ku daadsan degmada Mahadai iyo agaaraheeda. waxaan rabnaa inaan maanta raashinkan ku wareejino dowlad goboleedka Hirshabelle oo igala joogaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan rabnaa raashin runtii oo tayo leh oo runtii aan rabna inay dadkaasu ay uga maarmaan intii ilaahay uu qadiray ay sii isticmaalaan. Sidoo kale gudoomiyaha Hay'adda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Qaranka ayaa kormeer ku tagay isbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe ee degmada Jowhar oo isna xilligan wajahaya duruufo dhanka adeegyada caafimaadka sida ay sheegeen howlwadeennada isbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe. guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe haddaan dhahno aan ka sheekayno dhibaatooyinka caafimaad oo ka jirto wax dhow ma aha, laakiin saaka waxaan u nimid isbitaalka waxaa noo jooga agaasimihii isbitaalka oo igaga fara dhuudhuuban. insha allahu tacaala asagaa wixii warbixin noo dhammaystiri doona. isbitaalku marka waa daawo la'aanta waxaa la sii jiro shaqaaluhuna waa niyo jabsan yihiin ayaguna waa lacag la'aan oo dhibaatadaasaa jirto. marka waxaan codsanaynaa guddoomiyaha wixii awood uu heli karo inuu saaro talaabada koowaad uu qaadayo inuu ka dhigo daawo isbitaalka in la keeno iyo in macnaha shaqaalihii wixii loo heli karo macnaha isheeg oo ka dawlad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka emergency ahaanba. Gudoomiyaha Hay'adda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in hay'adda oo kaashanaysa Wasaaradda Caafimaadka Federaalka in ay ku dadaali doonaan wax ka qabashada adeegyada caafimaad ee isbitaalka gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan joognaa isbitaalka Jowhar runtii oo ay ka muuqato duruuf aad u adag. mudane agaasime warbixinta aad dhiibtay runtii iyo kormeerka aan ku imiday aaday ii saamaysay. isbitaalkan waxaa ka muuqato inaan gacan loo taagin sinis ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay inuusan adeegyadii caafimaad uusan fuli karinba. runtii arrintaasna runtii waa arrin xanuun badan. isbitaalkan waxay ahaaday inuu runtii gobol aad u weyn ku yaala gobollo badan adriis uu leeyahay. marka in isbitaal intaa la eg oo dhulka intaa la eg haysto inuusan haysan xatee emergencies-kii uusan haysan xatee qolkii emergencies-ka uusan haysan waa xanuun aad u weyn. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadane Telefishinka Dowladda Hirshabelle Jowhar.